bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada janalkeena madadaalo cusub. fadlan haddaa ku cusubtahay subscribe noo saar mahadsanid. waa maalinimo khamiis ah, taariikhdana ku beegan tahay 21 abriil sanada 2021. kusoo dhawaada warkeena maanta. qodobada idinku haynana waxaa ka mid ah madaafiic dhowra lagu garaacay xarunta madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya iyo qof lagu dilay magaalada muqdisho. wararkan ka soo gaarayo magaalada muqdisho ayaa sheegaya in madaafiic gaaraya ilaa iyo 10 lagu garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo goobo kale oo ka agdhow xarunta madaxtooyada. waxaa soo baxaya faahfaahin dheeraada ku saabsan madaafiic ku dhacday maanta degmooyin u dhow madaxtooyada qaranka. hoobiyaashan oo gaaraya ilaa iyo 10 ayaa mid ka mid a wuxuu ku dhacay degmada Boondare, iyadoo ku dhinteen 2 qof oo dumar ah oo mid ka mid a uur leedahay, halka 5 ruux kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo dhaawacoodana isku jiro kuwa aad u daran iyo kuwa dhaawacyo fudud qaba. dhaawacyada 5 ayaa loola cararay isbitaalada Madiina iyo isbitaalka Keesaney. sidoo kale madaafiicda ayaa ku dhacay meel ku dhow derbiga madaxtooyada uu ku sugan yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo sheegtay inay la beegsatay madaxtooyada soomaaliya, iyadoo taargetkooda uu ahaa inay qaarajiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. sidoo kale 3 hoobiyaal ah ayaana iyana ku dhacay xabsiga godka jilacow, iyadoo aan wax khasaaraha halkaasi laga soo sheegin, walow uu jiro qalqal ka dhacay gudaha xabsiga. wararka haatan aan helayno ayaa sheegaya in ay degan tahay xaaladda xabsiga godka jilacow. wixii warar ah arrintaasi kusoo kordha kala soco janalkeena madadaalo cusub. dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya suuqa bakaaraha ayaa sheegaya in goordhow halkaasi lagu dilay nin u shaqayn jiray hay-ad ka shaqaysa arrimaha gargaarka oo laga leeyahay mid ka mid a wadamada Yurub, iyadoo marxuumka la dilay uusan xataa wax shaqo ah u haynin hay-adaasi. dilka marxuumka ayaa waxaa geystay dhalinyaro ku hubeysan bistoolado, ayagoo dilka kadib halkaasi isaga baxsaday. sidoo kale aan idin raacin weerarka madaxtooyada soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay ahayd uu shir uu ka dhacay magaalada muqdisho. shirkaasi ay isugu yimaadeen beelweynta hawiye, iyadoo siyaasiyiin qaar ah ee si cad ah saxaafadda horteeda uga sheegeen in ay weeraro ku qaadi doonaan madaxweyne farmaajo, aysan haatanna wixii ka dambeeya ee shir iyo hadal arrinta ka gudbi doonto, ayna tegi doonto in dagaal laysaga dhiciyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. warar hoose ayaa sidoo kale sheegaya in madaafiicda qaar ay soo tuureen kooxda mucaaradka ay kasoo horjeedaa muddo kordhinta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sameeyey. muddo kordhintaas oo ah 2 sano oo dheeraad ah in uu xilka sii hayi doono. lama oga in ay mucaaradka sii wadi doonaan madaafiicda ay soo tuureen maanta iyo in kale, laakiin waanu eegi doonaa wixii warara ay arrintaas kusoo kordhaa. fadlan muuqaalka shargare, subscribe noo saar janalka haddaa ku cusub tahay, haddaa nala joogtane kusoo dhawaa janalkeena, ka hel mar walba warar ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha bulshada. maxsanid. iyadoo taargetkooda uu ahaa inay qaarajiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. sidoo kale 3 hoobiyaal ah ayaana iyana ku dhacay xabsiga godka jilacow, iyadoo aan wax khasaaraha halkaasi laga soo sheegin, walow uu jiro qalqal ka dhacay gudaha xabsiga. wararka haatan aan helayno ayaa sheegaya in ay degan tahay xaaladda xabsiga godka jilacow. wixii warar ah arrintaasi kusoo kordha kala soco janalkeena madadaalo cusub.
dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya suuqa bakaaraha ayaa sheegaya in goordhow halkaasi lagu dilay nin u shaqayn jiray hay-ad ka shaqaysa arrimaha gargaarka oo laga leeyahay mid ka mid a waddamada Yurub, iyadoo marxuumka la dilay uusan xataa wax shaqo ah u haynin hay-addaasi. Dilka marxuumka ayaa waxaa geystay dhalinyaro ku hubeysan bistoolado, ayagoo dilka kadib halkaasi isaga baxsaday. Sidoo kale aan idin raacin weerarka madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay ahayd uu shir uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaasi ay isugu yimaadeen beelweynta Hawiye, iyadoo siyaasiyiin qaar ah ee si cad ah saxaafadda horteeda uga sheegeen in ay weeraro ku qaadi doonaan madaxweyne Farmaajo, aysan haatanna wixii ka dambeeya ee shir iyo hadal arrinta ka gudbi doonto, ayna tegi doonto in dagaal laysaga dhiciyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warar hoose ayaa sidoo kale sheegaya in madaafiicda qaar ay soo tuureen kooxda mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo kordhinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyey muddo kordhintaas oo ah 2 sano oo dheeraad ah in uu xilka sii hayi doono. Lama oga in ay mucaaradka sii wadi doonaan madaafiicda ay soo tuureen maanta iyo in kale, laakiin waanu eegi doonaa wixii warara ay arrintaas ku soo kordhaa. Fadlan muuqaalka share garee, subscribe noo saar channelka hadaa ku cusub tahay, hadaa nala joogtane kusoo dhawaaw channelkeena ka hel mar walba warar ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Maxsanid.